السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan la wadaagi doonaa faa'iidooyin dhowr ah oo ay leedahay timirtu. Haddaba markaan ku hadlayno timirtu waa miro aad iyo aad u macaan badan, taasoo u muhiim ah caafimaadkeena. Haddaba halkan waxaan idinkugu haynaa 6 faa'iido oo aad iyo aad u muhiim ah oo ay muhiim tahay inaad taqaano. Haddaba hadda ka hormarna lambarka koowaad. Timirtu waxaa ku jiro marka fitamiino ayaa ku jira marka iyo macdanooyin aad iyo aad u badan. Sidoo kale waxaa usii dheer marka timirta waxaa ku jira wax la yiraahdo fibrous kaas marka waxay aad iyo aad ugu wanaagsan yihiin inay imaato ama ay ka hortagaan calool fadhiga. Marka haddii ay jirto ama ay jiro calool fadhi waxaa wanaagsan in la badsado timirta. Lambarka labaad, timirtu waxaa ka buuxa wax la yiraahdo antioxidant marka. Antioxidant-gaas marka waxay ka hortagayaan inay marka qofka cudurro oo in muddo soo hay inay kusii hormaraan. Tusaale ahaan cudurrada ku dhaco wadnaha oo kale, kansarka oo kale iyo sokorta ayay marka hoos u dhigi karaan marka. Lambarka saddexaad, waxay horumariyaan caafimaadka maskaxda. Haddaba markaan ku hadlayno timirta waxay muhiim tahay inay hoos u dhigto marka waxyaabaha caabuqa keeni karo. Sidoo kale waxay hoos u dhigi kartaa waxyaabaha faatka oo kale oo faat inuu ku sameysmo ama stroke inuu dhaco maskaxda ama waxyaabaha maskaxda dhibaato u keeni karo ayay aad iyo aad muhiim tahay marka ay ka hortagaan. Lambarka afraad, sidoo kale waxay ka hortagaan in aragga qofka oo yaraada. Marka qofka araggiisa hadduu yaraado waxaa ku yar vitamin A. Sidaa daraaddeed marka timirtu marka waxaa ka buuxa waxa la yiraahdo carotenoids-kaas marka waxay ka caawinayaan marka qofka inuu marka wax arko marka. Sidaa daraaddeed wuxuu xataa u fiican yahay ama uu kor u qaadaa caafimaadka qofka inuu wax arko. Haddaba haddii aad qabtid maxaa la yiraahdaa araggaaga oo yar waxaa fiican inaad badsatid waxyaabaha ay ku badan yahay vitamin A-ga. Lambarka shanaad, waxay ka hortagaan kansarka ku dhaca caloosha. Timirtu marka waxay ka hortagaan marka kansarooyinka ku dhaca caloosha, weliba kansarka ku dhaca maxaa la beerka, kansar ku dhaca beeryaraha way ka hortagi karaan. Sidoo kale waxay xooga ama inta badan ay ka hortagtaa ama xooga ama maxaan dhahnaa ama hoos u dhigtaa khatarta ku imaan karta kansarka marka caloosha ku dhaca marka. Lambarka lixaad, waxay joogteeyaan caafimaadka maqaarka. Markaan ku hadlayno timirta weliba khaasatan timirta guduudan waxaa ku jiro vitamin C. Marka vitaminkaas marka wuxuu kor u qaadaa marka in qofka maqaarkiisa ama maqaarka qofka uu aad iyo aad u jilicsanaado iyo sidoo kale qofka maqaarkiisa inuu noqdo mid aad iyo aad u siman oo ah smooth inuu noqdo. Haddaba waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan haddaa ku cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe saarto.